وفاعل عبدي أبين عبد سنة فايتا مالي أو سبت وحنا ودنبيسي أو لوسع قرح صوبه فوت نوشيني سامين وكيال فاطمة والبي تبنجر waxay u weyn tahay 6 caruur ah oo ka tagay Cabdi Sanaf Cali oo kamid ahaa dadkii ku dhintay qaraxii musiibada qaran ahaa ee 14 Oktoobar sanadkii 2017 ودي لعب mahaaso saasoo diidan nolosha qoyskani oo ku dhisnaa iskaashiga aabaha iyo hooyada waxa ay soo shaqeeyaan maalinkii way adag tahay waqtigan Foos Xasan Qamiis waa xaaskii Cabdi Sanaf Cali حمال ماشي وجونش قارقعن ويالي قارقعن وكحمالناي ومرنا وسوهلاي مرنا ونوكين مر وسوهلا مر وسوانا قوتو إلى أسودي ونوكين جري أننا ميلي أسك حمالن جرو أسكال ميسن جراني أسيكي مركان وابا نيت جبيبو hooyada qoyska kaligeed waxa ay la daalaa maareynta nolosha caruurteeda في عنده ومالنت أسكب حدا أسكب صدقة حي مركزية $3 هذا $2 حي مركز ليسوسي علمه أو بيستان تبقى أو الشقطة مالنت سوى ينحق الله لك سوى كلاس بيع عبينا الساحنين halkan ayaan nimid si aan u ogaano noloshooda saameynta ay ku yeelatay Foos ayaa waxa iga sheekeynaysaa dhibaatadii qoyskooda ka soo gaartay qaraxii 14 Oktoobar iyo sanad kadib saameynta ay ku yeelatay والله dhar maanta ayaka ee gashtaan wallahi inaan awood waa muslimka ilaahay wax u soo aruuriyo maanta ee ilmiga ay xiranaa waa ujeedaa qaabkooda soo ekeeyay geerida aabe nolosha qoys walba waa hubanti inay ciriiri galayso haddana reerkani ma jirin cid gacan qabatay sida ay ii sheegtay Foos Xasan wallahi na saamaay xerga mar aan tagay inta asaaga ii saarnaa oo asaaga cusba aan tagay هذا وحبي إيجا قرطين لمبر تليفون وإيجا قاتين ساونا ده بقصة وعيان وح إسوا وعمالها دور مران كنا نقضي وعم كده على بمركتهم وح إسوا واي واسكت دافع دتك خاركو بجاجي وحاسيتي آلسية أنا عد ما أنت وح أو إسيس إلى هتنجرته wajiyada caruurta agoonta ah waxa ka muuqda darxumada haysata waxa dheeri u ah la'aanta waxbarashada asaasiga ah waxa dugsi horta ma dhigtaan waayo dugsi ma awoodo waxa marka aan ku dhiibo Raaxa Cabdi Sanaf waa gabar kamid ah caruurtii uu ka tagay Cabdi Sanaf Cali Allah u naxariistay وعادي magaciisa magaciisa أنا كردينا يا راح علمه الجو يا waxaa ka muuqda daruufta weyntii aabaheed ma hadli karto balse haddii ay hadli lahayd waxa ay dalban lahayd inay cadaaladda maraan kuwii ka dambeeyay qaraxii ku dhintay aabaheed oo saameyn ku yeeshay nolosheeda iyo tan qoyskeeda Cabdishakuur Ali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho